saddex kun oo gabdhaha bas waaye dhegaysta wiilasha ma maqlaysaa 3,000 oo gabdhaha ayaa waxaa la siinayaa scholarship la xiriira tababarka macallinnimada iyo tababarka caafimaad. Bismillaahi Rahmaani Rahiim. Alxamdulillaahi Rabbil Caalamiin. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. gudoomiyaha midowga dugsiyada madasha kulmis agaasimayaasha guud madaxda jaamacadaha macallimiinta maamulayaasha ardayda iyo akhyaarta oo dhan dhammaantiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. aniga farxad weyn bay ii tahay inaan maanta halkan imaado oo aan arko kumanaankan dhalinyarada ah oo wiilasha iyo gabdhaha ah oo mustaqbalkii Soomaaliyeed ah oo rajo weyn ay ku qabaan waalidkood macallimiintooda iyo dalkoodaba ay rajo weyn ku qabaan. waxaan idin leeyahay maalin wanaagsan. waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa midowga dugsiyada oo xil weyn iska saaray wacyigelinta ardayda iyo sidii dugsiyadeennu ay u noqon lahaayeen dugsiyo qiimo leh arday fiicanna soo saara. sidoo kaleeto waxaan aad ugu farxay in barnaamijkan ay iska kaashadeen oo iskaashigaas horteenna ka muuqda uu ku yimid. Soomaalidu waxay tiraahdaa far kaliya maxay tiraahdaa far kaliya fool ma dhaqdo. wada jir iyo iskaashi ayaynu ku gaaraynaa waxa aan rabno. marka aad iyo aad ii farax gelisay iskaashiga intaan la eg ee suuro geliyey in lagu sameeyo munaasabadan weyn ee wacyigelinta iyo aqoon isweydaarsiga si ardaydeenna soo baxday oo dugsiga sare ka soo baxday ay u doortaan takhasuska iyaga ay doonayaan oo ay ka bixi karaan iyo waxa munaasabka ku ah mustaqbalkooda. waxaan rabaa dhowr fariimood oo kooban in halkan ka sheego. fariinta koobaad waxaa weeye dadku waxay dhashaan iyagoo siman oo isku mid ah. qof markuu dhasho asagoo baylot ee dhasha ma jiro. qof asagoo dhakhtar ee dhashana ma jiro. qof asagoo mutacallim ee dhashana ma jiro. waxa aad aragteen ee adduunyada lagu kala horumaray ma aha meesha aad ku dhalatay ma aha goorta aad dhalatay ma aha xataa sida aad ku dhalatay ee waa sida aad wax ku baratay. haddii adduunka meesha ugu fiican oo ugu horumarsan aad ku dhalato laakiin aadan waxba baran macno ma yeelanaysid. nolosha macno kuma yeelanaysid. saas daraaddeed wax naga sarreeya male. waxaa lagu kala sarreeyaa bas sida wax loo kala bartay ayaa lagu kala sarreeyaa. jidka keliya ee la isku waafaqsan yahay bini aadamku inuu ku kala qiimo badnaanayo waa sida aqoonta loo geliya dadka. taasaa waxay keentaa waxaa lagu magacaabo human capital ama raasumaalka aqooneed ama karaanka bulsho ama karaanka qofeed sidee loo kordhiyaa. taas weeye midda adduunyada lagu kala hormaro.
marka waxaan idinkula talinayaa marka koowaad maadaama aad soo dhammayseen marxaladdii dugsiga sare ah oo loo gudbayay marxaladda jaamacadda oo sida macallimiintu sheegeen isbeddel weyn uu ku dhacayo qofka oo uu laga yaabo inuu ka soo tago xaafaduu deganaa laga yaabo inuu ka tago magaaladuu deganaa laga yaabo inuu ka tago dadkuu yaqaanay isbeddelkaas in loo diyaargaro laakiin waxaan rabaa laba arrimood inuu qof kasta ogaado inay muhim u tahay haddaad tacliin jaamacadeed baranayso waxa koowaad ee lagaa rabo waqti badan inaad ku bixiso waa barashada luqadda aad wax ku baranayso buugga weyn buug yaryar baa laidiin dhiibi jiray dugsigii sare buug yaryar jaamacadda markaad tagto buug weyn yaa lagu dhiibay buuggaas wuxuu ku qoran yahay luqad aan ahayn luqaddii aada wax ku soo baratay waxaad u baahan tahay in aada luqadda aada wax ku baranayso waqti badan aada ku bixiso haddii kale buugga wuxuu noqonayaa madmadoobe allah ku yaqaano soo ma saasuu noqonaya waxbarashada inaad ku guulaysato heerka jaamacadeed waxa ay ku xiran tahay luqadda aada wax ku baranayso ama carabi ha noqoto ama english ha noqoto inaad luqadda si fiican aada u barato oo waqti badan aada ku bixiso midda labaadna waa tiknolojiyadda inaad adeegsato cilmigii meel kastuu yaallaa aaduu u horumaray aaduuna isu beddelaa cilmiga aqoonta waxay isu beddeshaa si yaab leh isu beddeshaa tusaale ahaan hadda adinku waxaa aragteen soomaa mobaylada isbeddelaya mobaylada maxaa ugu dambeeya haddeer S22 miya mase S24 iyo maxaa u dambeeyey iPhone 15 fiiri waxaas waa wax loogu talagalay ganacsi waxaasaa isu beddelaya aqoontana sidaasoo kale ay isu beddelaysaa culumta qaar ee la barto sanad kasta waxaa isbeddela 20% marka macnaheedu waxaa weeye 5 sano gudahood cilmigaas 100% ayuu isbeddelaya marka haddii aad adigu wax soo baratay ama aada wax baran rabto laakiin tiknolojiya aada la socon wixii aada baratayba in laga soo tegayaa laga yaabaa oo qof meel cidlo a joogo qof aan waxba baran inaad u ekaato ayaa dhici karta marka laakiin tiknolojiyada markaan ka hadlayo tiktok maaha misfahmi ma aha social media saas telefonka aad u salaaxaysid scrolling waxa yar markaa joogtaba saas maxaa soo kordhay hebel muxuu sheegay hebel maxay dhahday maxaa la yidhi kaa ma aha aqoonta iyo tacliinta kaas maaha waxaas haddaad u fiirsateen caawa markaad guriga tegtid oo seexan rabtid bal waxaa xusuusataa wixii maanta dhan aad fiirinaysay 5 wax oo ka mid a xusuusan karta ma jirtaa ma soo helaysa sababtoo ah see isu tirtirayaan telefonka isaga tirtirayaan refresh markaad dhahdo ayay maskaxdaadana isaga tirtirayaan waxaan u baahannahay dhalinyaro waxaan u baahannahay arday inaad go-aan ka gaartaan sida loo isticmaalayo smartphoneka inaad go-aan ka gaartaan waa balwad waxa uu qayb ka noqonayaa waxa maanka dooriya ee maskaxda halleeya ee u diida qofka inuu ama fikiro ama xusuusto wixii uu baran lahay ama wixii uu bartay markaa tiknolojiyada in lagu dadaalo marka aad da-dan soo gaartaan adinkoo saa nadiif u ah
waxaa jiro kuwa ka shaqeeya maskaxda dadka in la marin habaabiyo kuwa waa argagixiso waa kuwiina laaynayay ee inagoona waxba galabsan nagu soo weeraraya wasaaradda waxbarashada oo boqolaalka qof ku dilay oo inagoo iska caweynayna xeebta liido dadka ku laaynayay kuwaana waxaa weeye waa inaanu la dagaalanaa wiilasheena iyo gabdhaheenna ciidamada amniga ayaa u taagan inay beegsadaan oo ay la dagaalamaan oo ay dadka ka celiyaan annagana waa inaanay nolosheenna soo gelin waa inaan fikirkooda la dagaalanno waa inaan iska celinaa marka waxaa kaloo jira iyaguna waxyaabo kaleeto oo dadka maskaxdooda aad u waala oo ay ugu horreysa qabyaaladda hadda qabyaalad ma taqaanaan waa dhalinyartii marka hadda soo kortaan horta whatsapp groupka beeshaa laygu daraayaa horta soo maa ha aqbalin whatsapp groupka jirbada ha aqbalin wax uu kuu taraaya ma laha reer hebelaa saas dhahay reer hebelaan nahay maxaa whatsapp gruubyada oo jirkooyinka maxaa ku qoran inta badan qaraabo kale leh waxa laga sheegaya soo maa aniga la isku warwareeganayno reerkii hoosaa isku warwareeganaya waxaa lagu barayaa waxaanan jirin qadiyado aanan jirinna qadiyad baa lagaaga dhigayaa qadiyadeennu ma aha jufadeenna iyo reerkeenna ma waxaan rabaa si aad taas u ogaataan laba arrimood inaa idiin sheego marka koowaad hadda waxaa la qaadanayaa macallimiintii cusbayd ee wasaaradda waxbarashada usbuucan soo socda ayaa laga qaadayaa imtixaanka way gelayaan qof qabiilkiisa lagu shaqaalaynaya ma jirto qof waalay wataa iyo anaa wata iyo hebelaan ku ahay iyo reer hebelaan isku nahay shaqo ku helaayana ma jirto taas waa middaas waxaa kaleento marka imtixaanka la soo dejiyo usbuuca soo socdo haddii ilaahay yidhaahdo oo aan u dabaaldegno guusha imtixaanka oo aynu faraxno waxaa ku soo xigi doona in gabdhaha Soomaaliyeed oo ay ka mid yihiin kuwaan hor fadhiya iyo kuwa gobollada dalka joogo gabdhaha in scholarship la siiyo saddex kun oo gabdhaha bas waaye dhegaysta wiilasha ma maqlaysaa 3,000 oo gabdhaha ayaa waxaa la siinayaa scholarship la xiriira tababarka macallinnimada iyo tababarka caafimaadka waa la soo dejinayaa waa dalbanaysaa waxaa lagu siinayaa hadba darajadaada intay tahay iyo imtixaanka lagaa qaado hadba wixii aad ka hesho marka waxba kuuma talayo whatsapp groupka qabiilka iyo hebelow iyo saar iyo waxba kuuma talayo meeshaasaan rabnaa inaan isla wada aadna dhammaanteen inaan dalkeenna ka saaro faqriga inaan dalkeenna ka saaro colaadda inaan dalkeenna ka saaro dib u dhaca inaan ka saaro waxaan rabaa inaan kusoo gabagabeeyo waxyaabaha aan sheegayno ee la rabo in loo qabto dalkeenna oo dhan ma suurtagelayso haddaanan muwaadiniinta canshuurta aysan bixin waxaan rabaa halkan in uga mahadceliyo ganacsatada Soomaaliyeed shacabka Soomaaliyeed waalidiinta Soomaaliyeed ee canshuurta bixiya si dalkeena loo difaaco waa maqlayseen madaxdii halkan ka hadlaysay
dalkeenna khatartas haysato difaaciisa annagaana laga rabaa qofka aan rabin inuu canshuurta bixiyo waa inuu ogaadaa dalka inuu dayacan yahay dalka hadduu dayacmana dhaxal nooma harayo askarteenna canshuurtaa la siiyaa macallimiinteenna canshuurtaa la siiyaa waxa dadka loo qabanaya canshuurtaa la siiyaa marka inaan dhammaanteen ogaano dowladnimo nooma jiri karto dalkana ma haysan karna haddii aan canshuurta la bixin hadday waxaan dhahay midda ugu dambaysa soomaa mid kasii dambaysaa jirta marka middaas maxaa waaye hadda dhammaantiin markii waxay idinku soo dhacaan waxaad raadinaysaan madaxda iyo siyaasiyiinta yaa xildhibaan iyo yaa guddoomiyaha degmada ah yaa adeerkay ah yaa saas ah waxaan rabnaa inay siyaasiyiinta adinka idin soo raadiyaan oo madaxda adinka idin soo raadiyaan oo guryaha albaabadooda idinku soo garaacaan maxay idinka dalbanayaan maxay idinka dalbanayaan codka isii waa ku baryaa wax fiicanaan qabana waa ila xisaabtame anigaa heblaaya ka fiican anaa hebel ka fiican waa ballan qaada yaan rabnaa siyaasiyiintii madaxda inay idin dhahaan meesha ugu horeysana waa gobolka banaadir iyo degmooyinkiisa inaan u diyaar garowno dalkeennu isbeddelka ka imaan kara wuxuu ka imaan karaa inaan annaga dooranno dadka madaxda noo ah waxaan mar kale iyo mar kale u hambaliyaynayaa midowda dugsiyada iyo bahda waxbarashada guud ahaantood iyo hay-adaha iska kaashaday kulanka waxaan jeclahay in mustaqbalkeenna mustaqbal wanaagsan uu noqdo waase sida aan oga shaqayno dhammaanteen aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin bandhigana waa noo furan yahay wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu